10 arrimood oo ay u badan tahay inaad ogeyn oo ku saabsan boqoraddii Ingiriiska ee Elizabeth. Daawasho wacan. Qasri kumaysan dhalan. Boqorad Elizabeth kuma aysan dhalan qasri waxa ay ku dhalatay guri ku yaal London oo ay iska lahaayeen awoowayaasheeda hooyo. 21 Abriil sanadku markuu ahaa 1926. 2. Waxay boqorad noqotay ayada oo 25 jir ah. kadib markii aabbaheed boqor George uu dhintay 6 Febraayo sanadkii 1952 mar ay Elizabeth ay booqanaysay Kenya ayada iyo ninkeeda Philip. Boqorad Elizabeth ayaa la caleemo saaray Juun 2 sanadkii 1953. 3. Waxay ahayd boqortooyadii Ingiriiska ee ugu cimriga dheerayd. Elizabeth ayaa boqorad ahay 70 sano iyo 7 bilood taas oo ka dhigtay tan ugu dheer boqortooyada Ingiriiska abid. 4. Elizabeth waxay ka qayb gashay dagaalkii labaad ee adduunka. Boqorada Elizabeth waxay sidoo kale noqotay haweenaydii ugu horreysay iyo haweenayda keliya ee taariikhda qoyska boqortooyada Ingiriiska ka qayb qaadata dagaalkii labaad ee adduunka iyadoo ahayd darawalka baabuurta ciidamada. 5. Waxaa uu adeegay 15 ra'iisul wasaare intii ay noolayd. Boqorad Elizabeth waxaa uu adeegay 15 ra'iisul wasaare oo ka tirsana boqortooyada Ingiriiska oo kii ugu dambeeyey uu ahaa Boris Johnson. 6. Waxay ahayd boqoradii ugu safarka badnayd taariikhda. Boqorad Elizabeth ayaa haysata rikoorka waddamada ugu badan ee uu booqdo shakhsi boqor ama boqorad ah. Waxay booqatay in ka badan 120 waddan oo ku kala yaala 6 qaaradood. 7. Waxay ahayd qofka keliya ee loo oggol yahay inuu baabuur wado bilaa leesan gudaha cariga Ingiriiska. Waxaa loo oggolaaday in ay waddo ruqsad la'aan xataa sannadihii dambe waxaa la arkay iyada oo baabuur wadata marar badan. 8. Waxay safri jirtay bilaa baasaboor. Boqorada Elizabeth uma baahnayn baasaboor ay ku safarto taasna waxay ahayd mid ka mid ah mudnaanta la siin jiray ee ay boqoradda Ingiriisku ay lahayd. 9. Boqorada Elizabeth waxay noqotay boqoradii ugu horreysay ee dirta iimayl. 26 Maarso sanadku markuu ahaa 970 mar ay booqatay xarunta cilmi baarista isgaarsiinta ee Ingiriiska waxay dirtay iimaylkaas oo noqday kii ugu horreeyey. 10. Boqoradda Elizabeth ugu dambayn waxay geeriyootay Sebtembar 8, 2002 iyadoo 96 jir ah.